safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Kenya Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee wadani iyo siyaasi Cabdixakiin Xaaji Siciid oo kamid ah siyaasiyiinta aqoon-yahanka xisbiga wadani ayaa ka qayb galay asbalaaran oo maanta deegaanka Agabar ee gobolka Gabiley lagu sameeyay 2 marxuun oo toddobaadkii hore ku geeriyooday shaqaaqa ka dhacday isla deegaankaasi. aaska labada marxuun ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay madax kala duwan oo xukuumadda ka socotay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xildhibaano hoggaanka xisbiyada qaranka iyo dadweyne aad u badan waxaana ay safiir Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo siyaasi Cabdixakiin Xaaji Siciid dadweynaha iyo bulshada reer Soomaaliland ka tacsiyadeen geerida labadaasi marxuun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan maanta tacsi balaaran uga dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen labadii marxuun maalin dhaweyd ku dhintay magaalada Agabar shaqaaqadii ka dhacday. waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dadkii iyo eheladii ay ka tageen samir iyo iman Allah ka siiyo. dhinaca kale waxaa imika socda dadaalo iyo wada hadallo lagu dhameynayo arrintii ay marxuumiintaasi ku baxeen oo nafteeda ku waayeen oo u dhaxaysa xukuumadda iyo dadka deegaanka Agabar hadday tahay dhaqameedka iyo hadday tahay mas'uuliyiinta kale iyo dhammaan gobolka Gabiley odayaashiisa. waxaan rajaynayaa arrintaasi in ay ku soo dhamaan doonto isafgarad iyo nabadgelyo haddii Alla yiraahdo. Raxmaan Raxiim. inna ilaahi wa inna ilaahi raaji'uun. taasi marka hore waxaan u dirayaa reer Soomaaliland oo dhan. talabaad waxaan aad iyo aad u taxsiideynayaa familigii geeridu ku timid. waxaanu leenahay samir iyo iimaan. waxaad mudaarinkuna inuu si fiican inoogu dhammaaday qaybta xukuumaddu ma hadhay iyaduna insha Allah way dhammaan doontaa. samir iyo iimaan baa leeyahay. safiirka Soomaaliland ee dalka Kenya Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar waxa uu maalmihii u dambeeyay ku hawlanaa sidii loo xalin lahaa khilaafka shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Agabar iyo sidii labadaasi marxuun loo aasi lahaa maadaama ay muddo toddobaad ku jireen talaga dameedka cusbitaalka Hargeysa. shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka. internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25%. hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya. shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetkii iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday. hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah. macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay.